kani waa markab weyn oo ku xiran dekada magaalada Boosaaso kuwanina waa gaadiid ay ku rareeyeen ciida nooceeda loo yaqaan Jeyga oo loo dhoofinayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. shirkadda ka shaqeysan noocyada kala duwan ee dhismaha laguna magacaabo Hantara Construction Company oo fadhigeedu yahay magaalada Boosaaso ayaa bilowday mashruuca dhoofinta ciida Jeyga kaas oo gobolada koonfurta Soomaaliya baahin weyn looga qabo. shirkaddan ayaana si weyn uga dhex muuqata mashaariicda dhismayaasha dalka iyadoo oo caan ku ah shaqooyinka dhismaha haatanna bilowday mashruuceeda dhoofinta ciida Jeyga. Engineer Maxamed Saciid Kawir oo ah maamulaha kambaniga Hantara ayaa ka warbixiyay mashruucan iyo qabsoomidiisa marxaladihii uu soo maray. maanta taaganahay bisha kowda bisha afaraad 2024 tikada magaalada Boosaaso oo aan ka ambabixinayno jaygii ugu horeeyay oo aan ka dhoofinayno alxamdulillah rabbil caalamiin 13 sano ka hor ayaa laga joogaa inaan soo bilownay barnaamijkan jayga haddana ay noo joogto in maanta aan magaalada Muqdisho u dhoofinayno dufcaddii markabkii koobaad markabka labaadna isbuucan gudihiisa aan dhoofin doono haddii alla idmo. waxaan rajaynaynaa barnaamijkan inta aan ka sii waasicino. shirkadda Hantara Construction Company waxay yoolkeedu yahay haqabtirka mashruuca dhismaha iyo baahidiisa ilaahay ku mahadsan hawshaas intii badnayd waa qabanay wax badanna waa dhiman yihiin. waxaan rajaynaynaa sanadahan soo socda in aan gaarsiino baahida gobolada looga baahan yahay haqabtirka dhinaca dhismaha. waxa weeye caqabado badan kadib ilaahay baa ku mahadsan maantaan ku guulaysanay. systemkuna intaa uu ka sii qurxoonaan doonaa capacity-ga ama awoodda baaxadda aan bixinaynaana intaa way ka badan doontaa. ugu dambeynna qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso iyo nabadoon xarago oo ka mid ah isimada dhaqanka Puntland ayaa bogaadiyay ku dhiiranaanta shirkaddan ay ku dhiiratay in ay ka faa'iideysato kheyraadka dalkeena. waxa ayna ku booriyeen in halkaasi ay ka sii wadaan shaqadeeda. Hantara Construction Company runtii wax weyn ayay waddan ku soo kordhiyeen. anagu ku hadlaya magaca ganacsatada qaybta waliba construction-ka ama dhismayaasha iyo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa shaqadan ballaaran oo ay kambanigan Hantara uu noo bilaabay. runtii waa wax aad loogu farxo waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo. runtii kambaniga kan hore waxaan oga baranay shaqooyin badan oo uu qabtay qaybta dhismayaasha magaalada tan. waa kambaniga ugu weyn runtii oo maaragtay jayga aad u deeqsiyey magaalada. haddaynu soo qaadanno kii airbortko kale dekadoo kale. shirkadda Hantara waa u mahadcelinaya waa shirkaddii koowaad oo maanta dalka gudihiisa ka dhoofinaysa oo gobollada Soomaaliya ka haqabtiraysa. ilaahay idankiis jayga tayada iyo quality-ga ilaahay idanka aan u rajaynayno dalka gudihiisa in lagu sameeyay. aad baan runtii uga mahadcelinayaa dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen. waa u jeedaan waa shirkad ilaahay idankiis aad iyo aad dadaal badan uu ka muuqdo. ilaahay idankiis waan rajaynayaa insha Allah ganacsatada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dalka gudihiisa ka soo saara kheyraadkeena insha Allah buuxa. adeegga deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam. haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. sidoo kale si aad ula baxday lacagta kuugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga. waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxayna ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.